السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كينان waxaynu kaga hadli doonaa halyeegii weynaa iyo hogaamiyihii weynaa ee Qutaybah bin Muslim al-Bahili. Qutaybah bin Muslim bin Umar bin Hussein bin Rabi'ah bin Khalid bin Asid bin Quda'ah bin Hilal bin Salama bin Tha'laba bin Wa'il bin Mu'ni bin Malik bin A'sar al-Bahili. Waxa uu ku dhashay Qutaybah bin Muslim guriga hogaaminta ee Basra sanadku marka uu ahaa 49 hijriga. waxa uuna ka dhashay qoys ka soo jeeda qabiilka Bahili Najda. aabihiina waxa la oran jiray Muslim bin Umar, waxa uuna kamid ahaa aabihii asxaabtii Mus'ab bin Zubayr. Qutaybah waxa uu ku barbaaray dhabarka fardaha, waxa uuna ahaa mid la saaxiib ah seefta iyo waranka. halyeegan haldoorka ah waxa uu muujiyay geesinimo aad u weyn iyo halyeynimo aad u sareysa, waxa uuna soo jiitay indhaha hogaamiyayaasha sanadkiisii noolaa. markii uu soo barbaaray Qutaybah waxa uu bartay cilmiga fiqiga iyo quraanka, sidoo kale waxa uu bartay fardooleeda iyo habka loo galo dagaalka. Qutaybah waxa uu bilaabay dagaalka sanadka markii uu ahaa 86 hijriga, markii uu Xajaaj bin Yuusuf as-Saqafi u dhiibay maamulidda gobolka Khuraasaan. intaas kadib Qutaybah iyo ciidankiisii waxa ay u jeedsadeen in ay furtaan dhammaan gobolada bariga oo dhan. waxa uuna furtay magaalooyinka ay ka mid yihiin Khawarizm, Sijistaan ilaa uu ka soo gaaray magaalada Samarqand. sidoo kale waxa uu furtay wadanada loo yaqaan bilaadu ma waraa an-nahr oo ay ka mid yihiin Samarqand, Bukhara, Tashqand iyo Khawarizm. Qutaybah intaas kadib waxa uu u jeedsaday ilaa iyo Shiinaha, waxa uuna ka furtay magaalooyin fara badan ilaa uu ka gaaray darbiga Shiinaha. Allah u naxariistee waxa uu dhintay sanadku markuu ahaa 96 hijriyada oo ku beegan 715 miilaadigii. waxa uuna ku dhintay gacanta nin askartiisii kamid ah oo magaciisa la oran jiray Wakiic bin Hassan at-Tamimi. waxa uuna ku aasan yahay Uzbekistan. insha Allah ta'ala inahaas ayaynu ku soo koobi doonaa darsigeenan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi